Bismillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin salaamay walaalaha channelkeena ku xiran Samcookina Culture. Intay habeen wanaagsan, intay maalin wanaagsan, meel kasta aynu joogno iyo goor kasta aynu joogno Allah subxanahu wa ta'ala khayr hayna siiyo. Walaalayaal intaa ka bacdi dhammaantiin waa mahadsantihiin. Intiina cusub iyo intiina hore u joogtayba. Saynu la soconno maalin kasta oo talaada ah waxay nooga soo bixi doonaa insha Allah channelkeenan barnaamij ah sheekadaas oo aynu laba nooc uga jeedno inagu cibro inaynu ku qaadano waxa dhacaya iyo inaynu cilmi kala baxno hadday dulmi tahay inaynu dulmiga ka fogaano hadday tahay inaynu alla awoodiisa subxaanahu wa ta'ala umar walba inoo sheegayo ee agteena ka dhacaya aynu wax ku qaadano wax kasto adduunyada hareerahaaga ka dhacaya inaynu ogaano inay yihiin wax cilmiya wax isku tusa hoga tusaalayna qofka caqliga lehna uu wax ku qaadan karo. Walaalayaal maanta sheekan inoo hayaa sheekadaas waxa weeyaan ninkii 70 iyo dhowr jirka ahaa ee 50 jirka weegaa haddaba muxuu samayn jiray la socod wanaagsan. Sana sheekadu ku bilaabmaysaa waa inan Soomaaliyeed iyo nin aan isagu Soomaali ahayn oo ku kulmay meel tareenada laga raaco iyo basaska. waxay ahayd goor subaxa waxaan ku socday bay tiri suuqa dhexe ee magaalada ama centerka ama sidaad kolba u taqaanaa cityda ama townka aduu suuqa weyn ee magaaladan ku socday bay tiri suuqa dhexe waxaan sugaya bas bay tiri waxa isi soo kay taagay nin aan da'diisa markaa ku qiyaasay bay tiri inuu yahay dhowr iyo 50 jir ninkiiba waxay tiri wuu isalaamay dad kale oo meesha badanna way joogan bay tiri wuxuu igu yiri salaamu calaykum ninku ma hanin Soomaaliya laakiin wuxuu hanin wadamada Asia oo dhashay waxaan u celiyay wa calaykum assalaam isla markiiba wuxuu weydiiyay xageed ka timi markaas waxay tii waan u sheegay wadankan ka yimi isagina way weydiisay xagaad ka timi wadankiiba u sheegay waxay ku tii su'aal ma ku weydiin karaa haa wadiga salaantan igu salaamay ma nin muslina tahay maya buu yiri anigu ma ihi laakiin wadankayaga dad muslimiinana waanu leenahay dad aan muslimiin ahayna waanu leenahay marka salaanta iyo dhaqankaba waan aqaana ninkii markaa halkii baa muddo ay sheekaysanayeen bay tiri ka bacdi wixii weydiiyay bay tii waxaan qabto waxaan u sheegay bay tii aan ardayadahay isagina wuxuu weydiiyay bay tii adigu maxaad qabataa wuxuu anigu waxba imka ma qabto waxaan ahay hawlgab qof shaqadii ka fariistay laakiin muddo dhowr iyo 40 sano ayaan ahaa nin booliis ah wadankan aynu joognana inta gobol uu ka kooban yahayba waan ka soo shaqeeyay waxay tiri dhowr iyo 40 sano ayaan booliis ahaa ayaa waxay tahay hadana ila adkaatay ninkina dhowr iyo 50 jir buu leeyahay waxaan ku dhibay tiri wadanka goorma timi wuxuu dhibay tiri wadanka dhowr iyo 50 sano aan joogay waxaan weydiiyay bay tiri wadanka dhowr iyo 50 sano aad joogtaa su'aal ma ku weydiin karaa haa wadanka dhowr iyo 50 sano aad joogtaa aad ii sheegtay inaad joogto sax maxaad u timi marka wuxuu waxaan u ardaynimo dhowr iyo 50 sano ka hor wadanka weymi waxay tiri dhowr iyo 50 sano aad wadanka joogtaa umana eegid inaad qof markaa inta ka weyn tahay haddaan anigu ku qiyaasay marka qof dhowr iyo 50 jir aad ila eeg tahay adna dhowr iyo 50 sanaba intii waxaad ii sheegaysay inaad waxna dhiganaysay shaqaynaysayna ma ii sheegi kartaa sirta ka dambaysa maxaad samaysaa wuxuu dhageyso anigu 4 shay baan wuxuu sameeyaa 4 shay ayaan sameeyaa buu yiri horta wuxuu yiri anigu cuntada saliid lama cuno cuntadaydo dhan saliid kuma daro talabaadan sameeyo wuxuu yiri anigu waxaan sameeyaa exercise ama jimicsi fudud jimicsiga xoogaana ma sameeyo jimicsi la'aana kuma joogo wuxuu baaskiiladan ka haystaa meelaha baagagan la soo wareegaa beeraha wuxuu kubadda yara fudud baan ciyaaraa wuxuu exercise kan sameeyaa ta saddexaadan sameeyo wuxuu naftaydan bartay naftaydu buu yiri waxaan arkay buu yiri inay bulshada badan ee dhex galaya buu yiri ay soo gaarsiinayaan niyad jab wuxuu yiri niyad jabku wuxuu haddaad asxaabti markaad raacdo ee aad la kulanto ee aad dadka dhex gasho wuxuu hadallo waxa ka soo gaadhay buu yiri kugu sameynaya buu yiri inaad in badan ka fikirto taana waxaan sameeyay buu yiri si aanay naftayda aanay dhibaato u soo gaarsiinin buu yiri damage aan ii gaarsiinin wuxuu dadka ma dhex galo inta badan wuxuu gurigayga inta shaqayn jirin wuxuu shaqadayda iyo gurigayga dadka wuxuu in yar baan kala socdaa oo nadiif ah oo isleeyahay buu yiri dhibaato adduunyo kuguma furayaan intaana wuxuu waqti kooban baan la kulmaa saacado yar kooban baan la kulmaa
qaxwahayga koofigaygaan la soo cabaa ka bacdina gurigaygaan kusoo laabtay. ta kale afraad wuxuu xaas baan qabay oo dee ilaahay sugeeyey. wuxuu 2 caruura ii dhashay. 2 caruura markay ii dhashay wuxuu xaaskaygu waxay ahayd xaas aad u qaylo badan buu aad u dhib badan buu aad ii dhibtay. aniguna waxaan ahaa buu nin buu macaan oo wuxuu iska yacni miskiina oo wuxuu iska ooyay buu marka kelmad lagu yiraahdo buu maan jawaabay wuxuu waan ooyi jiray. ka bacdina buu xaaskayga markaan arkay buu inaanan wadi karayn iyadina waan iska fasaxay buu si aan naftayda buu ugu helo buu nolol bilaa warwara iyo bilaa shida ah. bal hadda la socda ninka kule yacni xaaskaygu marka ila hadlayso waxaan ahaa waan ooyi jiray waa nin booliis ah. awoodu ma siinayso inuu xaaskiisa ugu hanjabo askari baan ahaa waan ku xidhayaa halkanaan ku geynayaa waan ku dilayaa waan ku dhirbaaxayaa maya sharciga iyo shaqadu waa kala jaad iyo gurigaaga sidaad u maamulanaysaa iyo reerkaaga aad ula dhaqmaysaa. ka bacdi xaaskaygana waanu kala tagnay. 2 caruura ayaa ilaahay iga siiyey. 2daydii caruuraha wuxuu maanta waa dhaqtaro walow aanay isoo xiriirin buu caruurtaydii oo ila soo xiriirin buu aniga haddana waxaan aad ugu faraxsanahay buu inay caruurtaydu nolol fiican ku nool yihiin oo caruur dhaqtariina oo iyagu ismaamulo oo wuxuu noloshoodu aad u sareysa ay tahay baan aad ugu faraxsanahay. haddaba walaalayaalow waxaynu kala baxaynaa barnaamijka faa'iidada ku jirta ee aan anigu kala baxay idinkana aan rajeynay inay kala baxdaan waxa weeyaan horta number 1 awood ha sheeganin awood Allah subhanahu wa ta'ala baa iska leh. haddaad askaritay iyo haddaad waxaan wasiirtay iyo haddaad macallintay iyo haddaad waalid tahay mid walba waxaad ogaataa inaanad haddaad ummadda ku takrifasho ood awood u sheegato Allah subhanahu wa ta'ala inuu saa ku daalacanaya adigana uu ku qaban karo. ilaahay qabashadiisuna waa adag tahay iska ilaaliyeed marka ummadda shaad aad ugu hanjabto. talabaad wixii ku dhibaya ka fogow. hadday cunto tahay ay ku dhibaysa naftaada iska ilaaliyo baro. hadday tahay dad ehela ama dad kaloo bini aadanaba oo naftaada dhibaato ka soo gaarayso ka fogow. intaad khasaaro ka badan hadhow intoo dhacdo oo la isku dhicila oo la murmila oo mushkilad meesha iman lahaayeen ka fogow oo gaarkaaga iska deg. dadka waxaan ku dhahay nabaday meel wanaagsan haddii wax lagaaga soo boohdo qofka markaa awoodo si haddaad wax u qaban karto u qabo laakiinse socodkan badan iyo orodka badan iyo isdhexgalka iyo waxaan ku dhubuq badan ee dadku isdhex socdaan waa la isku nacaa taana iska ilaali. ta kale haddii aad tahay waalid aabba ah oo caruur hooyadood kala tagtaan jirto ama aad tahay hooyo oo caruurtaada aabahood kala tagteen oo caruurtaadii kula soo xiriirayaan kolba kii haysta mooyna ka kala la xiriirayaan waxta alxamdulilaahi rabbil caalamiin waayo dad baanay caruurtoodu la soo xiriirin ninkaaba ku tusaale qaata ma soo xiriiriyaan waa caruur dhaqaatiira waa caruur waxaan ku maasha Allah noloshii ku nool yihiin laakiin haddana aabahoodu waa kuwa jaray markaa kun jeer waxaad tahdaa alxamdulillaah alxamdulillaah alxamdulillaah. ta kale exercise-ku jimicsigu waa fiican yahay jimicsigana insha Allah tacaala ha la badsado intaad awoodaan haddii la haydmo. waxaan rajeynayaa sheekadan inaa wax badan oo faa'iido ah inooga soo bixi doonto. muhiimadaydu anigana maaha inaad sheekada dhagaysataan sheekada waa inaad fikirtaan qof walba maanta waxaad eegtaa bal maxaa ku dhibaya yaa ku dhibaya halkii wax kaa soo gaarayaan albaab kastoo kugu furan oo mushkilada oo ku dhibaya waxaan rajeynayaa inaad iska xidhi doonto. aad baan idin salaamo idinkaga tagayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.